heshiis walba oo Ethiopia lagu siinayo dhulkeena iyo badeena iyo xeebaheenna waa xaq darro waa waxba kaba jiraan waa inaynu diidnaa waa inaynu ka soo horjeesanaa waa inaynan u ogolaan kuwa muxuu ahaayay Soomaalida sheeganaya lee waxaanu matalaa Soomaali man matalaa walaalayaal dadka siinaya Ethiopia dhulkeena saldhig military saldhig ciidan oo badda siinaya iyo dhul ay qabsato dadkaasi waxa weeye waa daba dhilif u shaqeeya gumaystaha Ethiopia dadkaasi xor maaha waa cumala iyaga u shaqeeyaan waa in adiidaan in dhulkiina la bixiyo waa in tirahdaan maya halista soo socota halista ka dhalan karta in Ethiopia dhul cusub la siiyo saldhig ciidan oo badda ku yaala la siiyo dhul loo gooyo waxa lagu wadaa waliba dhulkaan idin sheegay meesha lagu wadaa waxa weeye waa Saylac iyo Soonaha Saylac xagay haysato dhulkay haysato qaybta Soomaali galbeed Soomaalida Ethiopia waxa la yiraahdaa Michigan bixintaan iska daayay waxa la yiraahdaa Soomaalida Ethiopia Michigan dadka muslimiinta ee Soomaaliyeed xoog baa lagu haystaa Soomaalida Ethiopia oo dhan waxa tiraahdan dhulka Soomaaliyeed ee Ethiopia haysato bixinta saa u bedela dhulka Soomaaliyeed ee Ethiopia haysato laakiin Soomaalida Ethiopia haddii aad tirahdid waxa weeye waxaad qiraal ka tahay ama aad qiraysaaba in dhulkaasi aanad lahayn haddaad tahay muslim Soomaaliya walaalayaal dhulka la doonayay in la siiyo Xasan Sheekh Maxamuud iyo kuwii ka horeeyayba ee Ethiopia heshiiska la galay dhulka ay doonayeen in la siiyo waa Saylac iyo Soonaheeda waa intaas dhulka ay haystaan dhulka caadiga bariga inaga haystaan ayaa bari kale iyo bad loogu daraya waxaad isweydiisaayo kale marka la leeyahay waxa la siinayaa saldhig ciidan oo badda ku yaala halkay soo marayaan waa in dhul la siiyaa waxa dhaba 20 kiiloomitir la sheegay iyo ka badan bay la siinay waxa weeye waa gumaysi iyo dhul qabsasho hor leh oo lagu darayo dhulkii inaga maqnaa waa in adiidaan Get it up.